السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkay waxaan sharaxaad ku samayn doonaa insha Allah tacaala si guud diamond selectorka aan wada naqaano ee la isticmaalo dadkuna si qaldan inta badan ay u isticmaali karaan laakiin aan doonayno insha Allah tacaala yaro kooban inaan ka sheegno kale mashiinadu way kala duwan yihiin laakiin waxa weeye si guud waxay ka mid yihiin mataqaana masoo tahay muxuu ahaa muuqaalkaas aan isla naqaano adaha iyo kambiyaasha soo processor way kala duwan yihiin. Okay, waxaan ka hormaraynaa walaal sidaan ogsoona halkan waa wejiga hore marka waxay ka kooban tahay mataqaana masoo banankaas oo laga damiyo lagana shido marka la shidayo mataqaana sidaan ayaan u soo wareejin doonaa sidoo kale marka daminayna xagga shaashada xaggeeda ila tan shaashadii oo arki doontaa ayaa loo damiyaa sidoo kale badankan waa laga dheereeyaa waa laga gaabiyaa waayo falaarahaas ayaad arki karaysaa falaarahaas waxay ka dhigan tahay mataqaana tanina waxa weeye xagga markaad u celisid yara gaabo weeye marka xagga u soo celinaysan waa dheerayntii bay ka dhigan tahay waxa la gaabinaya la dheeraynayna waa screenka markii la shido ayaa walaal waxa ka muuqan doonta hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala halkaas ayaa saddex calaamadood ee tan ugu horeysa ay tahay mataqaana cagaar tan ku xigtana ay tahay jaalle tan ugu dambeysana ay tahay mataqaana guduud ama casaan ayaa soo bixi doonta sidaad aragtidna lambarada saa ku qoran 1 2 ilaa 8 baa ku qoran macnahay ka dhigan yihiin soo koob marka walaal waanu tagi doonaa kuwaas ayaa marna la dheeraynaa mar la gaabin doonaa labadan badhan oo arkaynana walaal waxa weeye kan markaan mataqaana mas'uulta batteriga saacada ku xiray on aan ka dhigo ayay walaal mataqaana casaanka si soo shidmi doonaa ama guduudku ilbiriqsiyalan sugayaa ilaa 40 ilbiriqsi deetana lamba waxa soo baxay mataqaana midabka kala tahay mataqaana mas'uulta casaanka ah ama leerka gulubka kala shidmaya taasoo ka dhigan inay saacadu diyaar tahay kan kale ku xiga ka sareeyayna wuxuu ii sheegayaa in mataqaana maxaan ku raadayay batterigu uu shaqeynayo haddii saacada inta shidda batteri lambadan ishmayso waxa ka dhiganta batteriga ayaan ku shaqeynin ama cilad kale markaa jiri karta xagga dabka ah soo ururi markaa walaal wajigan waxaan u naqaanaa baan wajiga mataqaana koobaad halkanina walaal waa tiibkii weeye ama caaradii ama afkii weeye markaan ka saarno aan ku arki doono insha Allah tacaala tiibkuna waa ka waa midabkaas mataqaana mas'uulta hadda idin muuqanaya soo ururi mar walba inaad ilaalisid laga doonayaa walaal marka soo ururiya xaggan kale dhabarka dambe ama qaybta dambe ayaa waxa inoo saaran iyana mataqaana mas'uulta shaxdaas sidoo kale waxaad arkaysaa gudadkan oo samaacadii ah halka qalinkana walaal waxa weey mataqaana far iyo suulka gacanta isticmaalayso midigto kale ayaad ku qabanaysaa oo mataqaana mas'uulta inaad sidaan ugu qabatid baa walaal laga doonayaa inaad sidaan ugu qabto ayaa la iga doonayaa marka sidaan u qabto 90 degree waxa loo yaqaano ayaa sidaas aan qabanay dhagax sidaan u saaraya waxa la ii diiday inaan saan u saaro in si qaldana mataqaana mas'uulta si ka duwan u saaro ayaa la mataqaana mas'uulta la diidaya marka qalinka sidaas ayaa farta loo saaraya walaal halka qolobo mataqaana mas'uulta faruhu waa kala duwanaa karaan laakiin qaabkaas laga rabaa walaal inaan u saaro sidaasna aan u qabto adoo wajiga marka eegaya walaal marka aan soo koobay waxaan aadi doonaa marka shaxdaas qaabka aan u qabanayo waa taa shaxdan marka walaal noo muuqanaysa waxa weeye halkan waxaa noogu qoran tem oo ka dhigan temperature-kii oo sidaas ay u soconaysa walaal halkan waxaa ku qoran ct oo halka mataqaana mas'uulta hoos u baxaysa temtu marka walaal waxa weeye waa temperature-kii ama heerkulka mataqaana cimilada marka aan ku suganaa tusaale oo kale markaan joogno Soomaaliya guud ahaan cimiladu waa isku celcelis ilaa 30 centigrade mataqaana mas'uulta muxuu ahaa ayay gaartaa xaraarada heerkulka mataqaana cimilada ayaa laga hadlayaa waan arkaynaa waxay ka bilaabanaysaa mataqaana 10 centigrade ilaa wax ka mataqaana mas'uulta iyo kasii hoos 10 centigrade iyo mataqaana mas'uulta iyo maxaan ku raadayay 10 centigrade mataqaana mas'uulta caadi ah ayaan inta ku arkaynaa 10 centigrade ilaa 30 inta u dhaxaysan halkaan ku arkaynaa 30 iyo wixii ka sareeyay xaggaas aan ku arkaynaa ilaa cimiladu isku mid maahan 10 bay ka sii hoos kartaa minus gaar karaysaa sida wadamada mataqaana mas'uulta qabowaha oo kaleeto soo ururi halkaana ct baa ku qoran waa carrot baa laga wada walaal carrotka maxaa weeye waa halkii gram oo 5 loo qaybiyay ayaa carrot la yiraahdaa ama tusaale kaleeto 5tii carrot 1 gram ayay la mid tahay okay 1 gramna 1 kiilo ayay la mid tahay 1 kiilona hal tan bay la mid tahay macnaha hal cabirka la isticmaalo maqaano waa sida weeye kanaan ku soconaynaa marka walaal waxaan aragnaa marka 0.05 down iyo wax ka sii hooseeya macnaheedu carrot-kii
oo mataqaana masuuta 0.05 eber shan eber dhibic eber shan oo mataqaana kaaradkii ama hal cabirkii mataqaana masuutahay kaaradkii oo lasii jijibiyey ah haddii aad haysatid dhagax ah tusaale cimiladuna ay tahay walaal mataqaana 10ka halkaana ka wadaynaa 10 centigrade ay lamid tahay dhagaxaas waxaad geynaysaa mataqaana walaal 5 baad geynaysaa sababta 5 xagee ka imaatay waxay ka imaatay dhagaxa miisaankiisu inta la eg yahay cimiladiisuna ay tahay mataqaana masuuta 10 iyo mataqaana wax ka sii hooseeya 10 iyo ka sii hoose uu yahay walaal 5 aad geysan doontaa aan ku socono dhagaxa miisaankiisu uu yahay isla isagii baan ku soconana calaamadana raba inaan dhameeyo miisaanka waa isku mid ah cimiladiisuna ay tahay 10 ilaa 30 waxaad geyn doontaa walaal 6 ayaa geyn doontaa okay cimilo ah 30 iyo wixii ka sii sareeya dhagaxuna uu yahay miisaankiisu mataqaana masuuta intaas aan soo sheegnay walaal 7 ayaa geyn doontaa soo soco safkii baan weli ku wadaynaa macnaha masuuta saan iyo saan ayaan u kala wadi doonaa insha Allah tacaala okay waxaan haysanaa marka eber dhibic eber 6 ayaan haysanaa ama 0.06 ilaa 0.5 macnaha dhibic 5 cimiladuna ay tahay mataqaana masuuta 10 iyo wixii kasii hooseeya 10 iyo wixii kasii hooseeya dhagaxa 3 baan geyn doonaa haddii ay tahay mataqaana 10 ilaa 30 mataqaana inta u dhaxaysana dhagax waxaad geyn doontaa 4 haddii 30 ay tahay iyo mataqaana kasii hoose iyana waxaad geyn doontaa mataqaana aba kasii sare sorry cimiladu ay aad u kulushahay waxaad geyn doontaa 5 okay inta waa isla fahamtay shantu marka waxay ku soconaysaa saana way u soconaysaa saana mataqaana qiyaas macnaha ayaa ka socona cimilada marka tusaale kaleeto 30ka waxa ku aadaya hadda mataqaana masuuta markaan tan akhriyo xagee isaga kulmayaan halkan isaga kulmayaan haddaan mid lambarkan rabo inta isaga kulmayaan okay imaam marka waa eber dhibic 6 iyo wixii kasii sare ama 0.6 up 6 mataqaana masuutahay markii cabirkiisu uu yahay kaaradkiisu uu yahay inta walaalo waxaad geyn doontaa mataqaana saacadda lambarkeeda waxaad geyn doontaa 1 macnaha xaraaraduna ay tahay 10 iyo wixii kasii hooseeya 1 ayaad geyn doontaa haddii ay tahay 10 ilaa 30 inta u dhaxaysana waxaad geyn doontaa 2 haddii ay tahay mataqaana 30 iyo wixii kasii sareeyana waxaad geyn doontaa 3 anagaba haddaba maxaa naga qusay marka waxaan aan sheegayo walaalo horta marka koobaad dhagaxa maskaxda ku qabsanaysaa haddaad miisaan haysatana miisaankii baad isticmaali doontaa dhagaxa marka tusaale kale markuu yahay dhibic 6 ama 0.6 uu yahay ama dhibic 6 uu yahay walaal waxaa samayn doontaa insha Allah tacaala dhagaxaas 1 gram oo kale iyo mataqaana masuuta ka sii yar dhagaxa 3 baad geyn doontaa cimiladana waa taqaana Soomaaliya joogta masuuta 3 baad geyn doontaa haddii dhagaxu marka ka weyn yahay oo mataqaana masuuta ilaa maxaan ku raahday 20 gram iyo meesha uu gaarayo waad yareyn doontaa si kooban marka walaal markaan kugu sharxo waxay ka dhigan tahay mar walba oo dhagaxu weynaado lambarka walaal waad yareyn doontaa mar kastoo dhagaxu yaraadana lambarka waa badin doontaa laakiin 3 ugu badan waayo 3 halkaas ka imaato walaal dadku intaasayna fahmin okay tiradan marka xagee laga geenayaa walaalkayo tiradan waxaa laga geen doonaa inaad tiradan sida aan soo sheegnaba halkaanaad ka geen doontaa saacadda markaan shido waxay samayn doontaa mataqaana masuutahay way soo kici doontaa labada calaamadoodba ayaa ku casaan doona markay ku casaadaan ama ku diyaar garoobaan ayaa mataqaana masuuta shaqada iyo ku bilaabanaysa halkaanaad ka soo wadaysaa alo calaamadan wadaya ayadoo marka practical in tusayaa suga marka insha Allah tacaala ayaad arki doontaa practicalkii baad arki doontaa insha Allah